waxa uu ka kooban yahay casharkani kow oo ah qodobayntii yacni mawduuca iyo qodobada uu ka hadlayo qodobkii koowaad qodobka labaad iyo kan saddexaad iyo qodobka afraad iyo gunaanadkii oo aan kusoo gabagabaynayno casharka okay waxaan ka bilaabaynaa marka qodobyada casharka marka u horeysa soo qaado buug iyo qalin aad ugu tala gashay in aad bilowgaaga safarkan cusub ee aad bilowday aad mar walba dhacdooyinkiisa ku qoratid buuggaasi waa buug ku caawin doona waxa uu noqon doonaa marjac aad hadhow dib ugu laaban doontid mar walba ay wax kugu adkaadaan waa buug ku xasuusinaya wax badan bini aadamku wax wuu ilaawaa balse marka uu wax meel ku qoro ma ilaawo tusaale maanta haddii aan ku dhaho 456 ii xifdi haddaan ku dhaho oo ii qabo nambarka hayga ilaawin maanta dhan wixii aad hayso dhan waa ka mashquulaysa waxaa ku celcelinaysaa 456 sababtuna waa maxay si aadan u ilaawinba ugu celcelinaysaa sidaas si lamida markaa laakiin haddii aad warqad iyo qalin soo qaadatid oo meel ku qortid danahaaga iska qabsanaysaa hadhow qofkii markuu ku dhaho nambarkii ii sheeg 456 oo u yeerinaysaa sababtoo a meel baa ku qoratay howlahay kalena waa wadatay marka inta yaroo casharkani soconayo haddii aad warqad iyo qalin qaadatid oo nuxurka qoratid hadhow marjac buu kuu noqonayaa ku anfici doona marka isku day maadaama aad bilow tahay buug gooniya inaad u samaysatid xirfadda tan buuggaasna aad meel ku xifdisatid oo mahadsantii oo guda gelaynaa casharkeena qodobada casharka koowaad uu ka kooban yahay waxuu ka kooban yahay waa maxay forex ganacsigan aad ka ganacsanaysid iyo waxa uu yahay qodobka labaad taariikhda forex inaad garanaysid waxaana hadda ka shaqaysanaysid meeshii uu ka soo bilowday cadadka lacageed ee suuqan laga faa'iido waa inaad garanaysid yaa ka shaqaysta suuqa kan waa ina iyagana aqoon u leedahay dadka ka shaqaysta kadibna qodobka shanaad waa gunaanad intaana qodob buu casharkeenu ka koobnaan doonaa saaxiibaya okay qodobka koowaad baan dul istaagaynaa waa maxay forex waa suuqa kala sarifka lacagaha qalaad waxaad isku beddelaysaa laba waddan dhaqaalahood tusaale halka dollar qiimaha uu joogo waxaa ku beddelaysaa halka euro qiimaha uu joogo suuqani waxa uu furan yahay 24 saacadood 5 beri isniin ilaa jimce sabtidii axaddana wuu xiran yahay suuqani waxa uu furan yahay isniin ilaa iyo jimce 24 saacadood sida ay u kala furay marka adduunyada tan qayb laga hurdo qayb baa laga soo jeedaa mar walbo aad soo tisa waxaa arkaysaa suuq furan oo laga ganacsanayo xilliyaday suuqa ku furmaan ee qaabka ay u furmaan iyo waxa dhan casharada kala ku qaadan doonaa okay cadadka lacageed ee suuqan laga sameeyo ama lagu kala faa'iideeyo forex waa 5.3 trilyan ma aha milyan ma aha bilyan waa trilyan waad dareemaysaan cadadkeedu intuu yahay maxaa lagaa doonaya marka haddii aad rabtid inaad suuqan ka shaqaysatid waxaa lagaa doonaya waxa weeye aaladda internetka inaad haysatid qodobka labaad oo soo raaca waa maxay inaad haysatid computer qodobka saddexaad oo soo raaca waa maxay
taleefanada casriga ah inaad haysatid si aad ugu soo degsatid abka. balse dadka qaar ba waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan haddaan haysto computer maxaa telefoon uga baahnay, haddaad telefoon haystana maxaa computer uga baahnay. waa muhiim labadaba inaa haysatid. computerku waa lagaba maarmaan bataatanba, sababta oo ah waxaad falanqaynaysaa suuqii. waxaa u baahan tahay maanta dhan marka inaad computerkii ku falanqaysid, telefonka waxba kama falanqayn kartid. haddii aad rabtid inaad noqotid qof xirfadan ka miro dhaliya waa inaad computer haysataa. qodobka saddexaad soo raacana waa inaad haysataa telefoon, sababtoo maanta dhan computer ma wadan karto, fasal lama dhex fadhiisan karto, meherad lama dhex fadhiisan kartido maanta dhan ya. waxaa u baahanta marka mararka qaar inaad waxa weye telefonkaaga kala socon kartid, inta aad guriga joogtidna aad wadan kartid waxa computerka. haddii aadan shaqo aan shaqadan ahayn aadan qabanna waa laga maarmaan inaad boorsada lagu qaato qalabka aad haysatid oo ay kugu jiraan waxa weeye chargerki lagu dabaysanayo computerkii, wax walba si aad mar walba aad fursad walba uga faa'iidaysatid, ishana ugu haysid markaad triyada kuu furan. marka saddexdan qodob baa lagaa doonaya, shuruudaha lagaa doonayo. okay, waa isla fahanay. okay, qodobka labaad, taariikhda forex. taariikhda forex haddaan si guud idiin siiyo, dunidu waxa ay soo martay 3 marxaladood. waxay soo martay marxalad stone age la dhaho, yani 3 marxaladood bay isku badbay dunidan tani maraysaa markaad fiirisid. waqti xaa waxaa kaloo imaan doonaa laakiin 3 marxaladood ba hadda yani waxa weeye idinka waramaya taariikhda. marxalad waxaa yidhi xilligii stone age-ka, oo xilligii stone age-ka wuxuu ahaa xilli lagu safri jiray fardaha, xilli aysan technolojiyadu jirin, xilli waxay ahayd lagu dagaalami jiray warmaha, xilli waxay ahayd wax layskugu qori jiray warqadaha, xilli laga soo gudbay marxalad noocaasay ahayd. balse waqti xaadirka kan waxa la maraya waxa la dhaho digital age. marka intaan digital age-ka gelin, xilliyadii hore suuqan forex muxuu ahaa seese dadku wax ku kala sarifa jira, wax ku kala bedelan jira. xilliyadii hore waxa laysdhaafsan jiray ama laysku bedeli jiray badeecooyin. tusaale oo kale, qofkani waxa uu u baahan yahay buu keenayaa, waxa uu ku bedelanayaa yani waxa weye waxa uu u baahnayn buu keenaya, wuxuu ku bedelanaya wuxuu u baahan yahay. tusaale oo kale, ani waxaa laga yaabaa inaa haysto geel fara badan, inaa haysto lo fara badan, inaa haysto ari fara badan. anaa ka soomaalaya waa imaanaya magaalada, waxaan ku bedelanayaa waxa markaa u baahnahay sonkor, bur, kadibna saas ku tagay. yani sidaas wax lagu kala bedelan jira waqtiyadii hore. qofku hadduu beer haysto wuxuu kusoo goosanaya mooskiisi, wuxuu ku bedelanaya wixii u baahnaa marka magaalo uga baahnaa. yani saas wax lagu kala bedelan jiray, yani badeecooyinka saasaa laisku dhaafsan jiray, lagu kala bedelan jiray xilligii stone age, maadaama aysan jirin waxyaabahan waxa weye lacagahan ama digitalka ama warqadaha iyo ama shilinkii oo kale. kadib goortii laga soo gudbay marka marxalada tan badeecooyinka wax lagu kala bedelan jiray, waxa lasoo galay marxalada tan oo ah in wax lagu kala bedesho shilinkii, birihii in wax lagu kala bedesho, oo ah qodobka koowaad. oo qofku wuxuu halkaas saas wax lagu kala iibsanayay. kadib waa laga soo gudbay oo waxa lasoo maray yani waxa soo hoskale shilinka de waxyaabihii markaas lagu kala bedelan jiray oo kale waxa kamid ahaa oo kale tusaale oo kale dahabkii, waxyaabahaas ayaa kamid ahaa waxyaaba waxa lagu kala bedelan jiray. kadib qodobka labaad muxuu noqonayaa wax lagu kala bedelan jiray. qodobka labaad waxa lagu kala bedelan jiray waxa weeye lacagta warqadaha goortii laga soo gudbay, yani xilligii stone age waxa loo soo gudbay marka warqadihii oo markaa dabayaaqa ah. stone age-kii dabayaaqa warqadihii baa lacagii warqadaha ilaa haddana jira, laakiin dabayaaqa ah oo digital age-kii kana la shaqeey iyadoo la casriyeeyey lacagii warqadaha ah. qofku lacagtaasuu wax kusoo iibsanayaa markaas.
saas wax lagu kala bedelan jiray sida aad aragteen yani waxa weye sariflayaasha oo kale aad aragteen qofkii bir buu halkaa u taalla lacagtii shilinkaa buu hayaa soomaaliga wuxuu ku bedelayaa dollarka isagoo adeegsanaya gacanta hore iyo gacanta dambe kadib waa laga soo gudbay lacagta digitalka waa la marayaa hadda lacagta digitalka maxay marxaladda hadda la marayo waa maxay markaa waxa weeye waa marxaladdii digital age oo stone age waa laga soo gudbay xilligii digital age-ka la maraya oo waa maxay marka forex hadda marka waxa weeye waa xilligii hadda waxa lagu jiraa digital age oo numbers wax lagu kala bedelanayo maanta waad aragtay soomaaliya meelo fara badan oo waxa weeye yurubta tan hadda ka mid ah waxa la isticmaalay waxa weeye waxa la isku dirayaa lacag hawadaas digital hawo yani ma aha waxaad taaban kartid yani waxa lagu jiraa xilligii digital age ama marxaladii looga guurayay lacagihii warqadaha oo loo guurayay waxa weeye lacagahan casriga ah digitalka marka forex hadda waqti xaadirka kan waxa weeye adoo gurigaaga jooga teleefonkaaga iyo computerkaaga isticmaalaya baad waxa isku bedelaysaa lacagihii adduunka taasna waa maxay waa digital age baa la joogaa waqti xaadirka kan waxaa imaan doona marka oo soo socda waxa la dhaho imagination age oo wax hadda adiga marka lagu sheego dhalanteed kula noqonaya inay xaqiiqada isku bedeli doonaan taas kama hadlayna balse hadda focuska waxaan saaraynaa mawduucan iyo marxaladan hadda joogno oo ah digital age oo wax way adoo gurigaaga jooga teleefonkaaga iyo computerkaaga isticmaalaya inaa isku bedelaysid lacagihii adduunka oo dhan okay marka taariikhda tan iyo marxaladaha soo maray saas wey balse marxaladda hadda lagu sugan yahay baa adiga ku anfacaysa oo ah digital age-ka kan in mar dhow laga guurayo in lacag warqadaaba aan la qaadanba oo loo guurayo waxa weeye digital wax walba isku bedelayaan okay qodobka labaad iyo qodobka saddexaad haddaan intaa uga gudubno waxaan tegaynaa qodobka afraad yaa ka shaqaysta suuqa kan yaa qeybka ah suuqa kan yaa ka shaqaysta suuqan waxaa ka shaqaysta dowladaha waxaa ka shaqaysta bankiyada waxaa ka shaqaysta hay-adaha yani dhaqaalaha waxaa ka shaqaysta maalqabeeno waxaa ka shaqaysta tafaariiqley ama iyo sidaa u taqaanaan tafaariiqleyda adiga iyo aniga oo kalea waa shacabka markaad fiirisi marka suuqa kan dowladuhu se uga shaqaysan dowlad walba iyada ayaa go-aamisa lacagta waddankaas yani waxa weeye dowlad walba waxay leedaha banki dhexe dowlad walba lacagta sixirka lacagta ama sicirka lacagtaas waxay ku ilaalisaa meel cayiman si uusan sixir barar u dhicin ama sicirka lacagtaas aysan hoos u dhicin mar walba oo sixir barar dhaco waxa dhacaya waxa weeye dhibaato mar walba oo lacagta qiimaheeda hoos u dhacana waxa dhacaysa dhib marka maxaa yaa weye waxa halkaa ku ilaalinaya lacagta waxa halkaa ku ilaalinaya waa bankiga dhexe ee dowladda dowlad walbana maxay ilaashanaysaa waxay ilaashanaysaa lacagteeda iyo qiimaheeda inay meel go-an oo xadidan ku ilaaliso aysan halkaa marna ka dhicin mar walba halkaa ka dhacdo dhibaata imaanaysa yaa kaloo ka ganacsada waxa kan ama qeybka ah waxa qeybka ah bankiyada see qeyb uga yihiin bankiyadu sidaa wada ogsoon tihiin bankiyadu waxay hayaan lacagihii dadka oo dhan bankiyadu waxay hayaan lacagihii dadka oo dhan bankigu marka lacagahaasu hayoo dhan muxuu ku falayaa xaggee geynayaa wuu ku shaqaynayaa bankigu adiga hadda lacag hadday banki kuu taalo micnaheedu waxa weye lacagtaada waa lagu shaqaynayaa adigu lafii baa leeda balse faa'iidadii oo dhan waxa qaadanaya iyaga waxa laga yaabaa dadka qaarna wax yar ka soo gaaraan
taas marka waa kiis kale laakiin nuxurkan ka hadlaynaa see marka bangigu uga shaqaystaa suuqa kan bangi walba oo aad aragtid magaalada bartamaheeda wuxuu ku leeyahay dabaq dheer oo qurux badan ma arkaysid bangi ku yaala meel ka baxsan magaalada xataa wadankii soomaaliya markaad fiirisid bangi walba wuxuu leeyahay saro dhaadheer waxaana uu ku leeyahay bartamaha magaalada xaggee marka waxaasoo dhaqaalaha ka keena lacagtii shacabkay hayaan maadaama ay hayaan lacagtii shacabka dad aqoontan bartay baa waxay u fadhiyaan dhabarka dambe ee bangiga oo suuqa ku trade garaynaya lacagtii dadkay u hayeen bay suuqa la gelayaan kadibna halkaasi waxay kasoo saarayaan faa'iido aan caadi ahayn kadibna dadkiibaa lafahooda loogu soo celinaya iyagiibaa faa'iidada kusii shaqaynaya bangiyaduna sida ay uga shaqaystaan waa sidaas oo kale waxay kusii galaan oo kale marka dhaqaalaha halka kasoo baxaya real estate-kii meelo kale investmentyo kale kusii sameeyaan ama laamahooda kusii ballaariyaan sidaas waa sida ay uga shaqaystaan bangiyadu haddana way fahmeen bangiyadu inay dadkii baraarugeen oo buugaag fara badan baa laga qoray oo yacni waxa inay dadku waxba kaydin in lacagtooda u shaqayso dadkii loogu shaqeeyo balse oo casrigan waa laga guuraya inuu qofku lacag meel iska dhigo yani waxa loo guuraya casri ah inuu waxa weeye qofku lacagtiisa u shaqaynaysa ama cash flowga kale yani lacagta uu risaalo kale inuu qofkii guri iibsado gurigaa markuu iibsado uu kireeyo bil walbana lacag baa kasoo gelaysa yani lacag inta meel iska online in lacagta uu meel geliyo real estate guri iibsado gurigii bil walba kiro kasoo gasho kadibna lacagtiisa u shaqaynayso kadib gurigaa kirada kasoo gasho meel kale uu kusii maalgeliyo iyo lacagtiisa intay ooli lahayd usii shaqaynayso waxaa jira marka hay-adaha waxa weeye dhaqaalaha oo kale ama si kale haddaa u dhigno waxa shirakaadka oo kale shirkadaha oo kalea ka mid a sida alibaba oo kale amazon xageebay maxay u kicilaya hadda maanta waxaa arkaysaa shirkad soomaaliya la furayaa shirkadda isla markii way kacaysaa yacni sababtoo ah qofka kani ma laha yacni investment meel kale kagama jiro dukaan buu iska furaya ama meel weyn buu iska furaya alaab badan buu soo dhigaya kadibna meel haddii alaabtii uu laga iibsan waayo qofkii ma helay ama dukaankii uu isbixin waayey kiradiisii iyo shaqaalii wixii o dhan waxay noqonaysaa inuu qofkii waxa weeye niyad jabo oo halkaa ganacsigii ku burburo albaabadana loo xiro balse marka aad u fiirisid calibaba iyo amazon haddii hal bil aan waxba laga iibsan wax saameyna kuma yeelanayaan shirkadooda inay yacni dhulka ku dhacdo dadka customerkooda hadday u imaan waayeen sababtoo ah dadkani lacagtoodii waa u shaqaynaysa waxay ku jiraan suuqan forex dad waxaa jira khibraddan bartay bay u dhiibayaan lacag waxay leeyihin kusoo shaqee kadibna intaasaa leedahay intaasaa rabnaa inaa khasaartid yani uu cadidayaan intaasaa rabnaa inaa khasaartid intaasna inaa faa'idid intaasna waxa weeye adigaa le percentageka haddaa intaa samaysid muddana loo qabanaya kadib sidaasaa shirkaddii waxa weeye mar walba ay kici rabto lagu badbaadinaya shirkado badan oo maanta caana baa sidaa lagu badbaadiyey inta lacagtii loo dhiibay dad xirfadan bartay suuqa ka lacag kasoo sameeyey kadibna shirkaddii dib loogu celiyey seesa u kicin yaa kaloo marka sidaa waa sida ay shirkaduhu uga shaqaysaan ama dadkan waxa weeye hay-adahan maalqabeenada ah ama waxa weeye ganacsatada yaa kaloo ka shaqaysta marka maalqabeeno ama ganacsato baa ka shaqaysta dad shaksiyaada oo taajiriina cayaartoyda oo kale fanaaniinta oo kale dadkan waxa weeye caanka ah iyo taajiriinta actarada oo kale dad qoraayaal oo caana dad saxafiyiin oo caana dad siyaasiyiin oo caana baa suuqa kan iyaguna qeyb ka ah maalqabeena see qeyb uga yihiin dad xirfadan bartay baa ugu shaqaynaya lacagtoodii u dhiibayaan kadibna ugu shaqaynaya lacagtoodii
waa sababta la dhaho maxay dadka taajiriinta u taajiraan dadka faqiiriintana u faqiiraan. dadka taajiriinta waxay u taajiraan lacagtoodiiba u shaqaynaysa cash flow. waa sababta usii taajiraya dadka taajiriinta. dhaqaalaha adduunku suu doono hadduu u dhaco iyaga wax saameyna ugu yeelanayo ma jirto, inay sii taajiraan maaha. waxaa jira marka dadka faqiiriinta sabab ay u faqiiraan, sababta oo ah waxay u faqiirayaan dadka faqiiriinta ah lacagtoodii waxay gelinayaan waxaan muhiim ahayn, halka kuwan kale lacagtoodii maalgelin sameynayaan. kuwan kalena waxay ku fikirayaan inay teleefon cusub, tv cusub, dahyo cusub. sababtaas weya dadka maalqabeenkaana qeyb bay keenay suuqa shaqaystaan. dadka shanaad oo soo raaca qeybta shanaad waxa weeye waa shakhsiyaad adiga iyo aniga oo kale ah. shakhsiyaadka kani waa shakhsiyaad aan intaa kale aan soo sheegnay ahayn ee shacabkiia oo suuqan lacag yar ku bilaabaya, kadibna hadday xirfadii xoogga saaraan, goobtii saxda ahayd wax ka bartaan, horumar fiican ka gaaraya oo intii yarayda ku bilaabeen meel fiican gaarsiinaya, kadibna ka maarmaya inay cid u shaqeeyaan oo ka xoroobaan yacni addoonsigan casriga ah, oo u xoroobaan dad xora oo iyagu iskugu madax bannaan. markaad fiirisi marka shakhsiyaadka adigii aniga oo kalaa goormaa laynoo ogolaaday? waxa laynoo ogolaaday 2006 wixii ka dambeeyey. wixii ka horreeyey yani 2006 markuu soo baxa la dhaho brokerka, oo ah wax kuu fududaynaya adiga suuqii inaad si fudud uga shaqaysan kartid, meesha lacagta ku shubanaysay oo yacni idiin dhexeeya adiga suuqii, kadibna saa suuqa uga shaqaysatid. balse markii hore shuruudaa la isku xiri jiray, intaasoo 100 kunna haysatid, inaad waxa weeye caddaymo keentid meesha lacagta ka keentay, yacni intaasoo shuruudaaba la isku xiri jiray. balse waqti xaadirka kan keliya waxaa lagaa doonayaa in gogo'naashi jiro, rabitaan xooggan, telefoon iyo computer iyo internet haysatid, goobtii saxda ahaydna ku xiran tahay, horumar baad ka gaaraysa. intaas waxa weeye dadka ka shaqaysta suuqa kan iyo qaybaha u kala baxa. gunaanadka marka casharka kani waa qeybtii hore. isku day intii nuxurkaa inaad meel ku qoratid, su-aalaha casharka kaaga soo dhex baxayna aad meel gooniya ku qoratid, kadibna aad soo weydiisid si aad hadhow u weydiisid macalinka. waxaan idiin rajaynayaa guul iyo horumar, iyo inaad suuqa kan guul la taaban karo ka gaartaan. waxba hawlweli, forex oo wax fudud, aniguna waxaan kaaga dhigayaa wax aada u sii fudud. waxaana ku siinayaa sharaxaad fudud oo aad si fudud u fahantid. hore u soco, guuleyso. dhammaantiin